دورت waxa weeye arintan commissionku waa in badan bay soo socotay 2 sano ay socotay in fact waxaana weeye waa arin aad u sahlan waanagu waxay heedaan xusbi cidnahay hore priority-gu in doorasho dhacda bay oo dalkana u dana anagana u dana asxaabtu dhana dumaraadiyada u dana magaciina u dana hasaatee wajitantay waxaan wada wadigaan 3 wada galay heshiiska galay inay ka shaqeeyeen international community halka marka waxa weeye waxa tii marka xeerka in la raaco shuruudihiisa ayay marka xeerka shuruudihiisa madaxweynuhu waxa nagu ilaaliyaa xeerka madaxweynuhu marka inuu xeerka nagu ilaaliyo uu ku ilaaliyay guurtida uu ku soo daayay xabad buu ku celiyay marka nasiib daro waxa noqotay in dese ay ka noqotayba madaxweynuhu waan ilduufi karaa inuu ilduufa laga yaabay inuu marka hal xubin oo dee ahaa active-ka ahaa xusbi kulmiye oo dhowaan ayaa kelibis ku hadliyey aanu u daaray taas hadda keentay dhibaatada infeer laakiin xubintaas miyaa lahayaa caddaymay inay xisbiga kulmiye ku jirtay kelibisiiskii August baa lahayaa wasiir buu ahaan jiray laakiin haddii uu xisbiga ka baxay miyuusan xaq u lahayn inuu noqdo commissionka doorashooyinka marba hadduu qof siyaasad galay marba hadduu politician noqday partisan noqday horey u soo baxay tani waxaa jiray magaalada saayay maxamed xaashi ayuu ka madasha jooga waxa soo magacaabay kulmiye riyaala diiday waxa jiray ilhaan soo magacaabay kulmiye riyaala diiday maxamed ismaan fadal soo magacaabay wadani oo shiraay diiday this is normal life dhanka kale golaha guurtida iyo golaha wakiilada Soomaaliland baa iyana loo sameeyay muddo kordhin idinku ka xisbiyan sidee u aragtaan golaha baarlamaanka iyo guurtida waxaan u arkaa inay sharci darro yihiin waxay soo saareen ay sharci daratay sharci oranaya guurtidu ha joogto oo markuu odagu dhintay inankiisu ha maamulo horta ma jiro sharci oranaya baarlamaanka hadduu waqti isku dhaco ha loo kordhiyo oo oranaya ilaa in baarlamaan la soo doorto ha fadhiyan horta ma jiro waxaan ugu bilaabay administration kan ka horeeyay kulmiye ayaan ugu bilaabay oo sanadii 8 bilood u kordhiyay oo waxaan isaga imanka u bilaabay maayo wax hore loo bilaabay wana foolxumada ugu weyn dalka Soomaaliya ku jirta imanka ku faano waxaan nahay dumaraadi la ilaa maxaa dumaraadi inta laba house haddana waxa jooga local councilka oo loona kordhin kana dhamaatay marka dhibaatada maanta haysta waxa weeye Soomaaliland waxaan u muuqanaa ummad aan sharci ku socon sharciga islaamka kuma socono kii aanu qorano kuma socono kii Soomaalida inoo dhaxeeyana aan ritaan kuma socono marka ummad aan sharciba ku soconin way adag si ay u noolaan kartaa dhibaatada ugu weyn maanta waa taas laakiin cidda qasabtay in la kordhiyo ama xisbiyadiina ahayno aydan idinku commissionkii doorashada qaban lahaa aydan imika muran ka keenin oo aanay hawsha halka ka xayrneen ma xayrtaa waa leen canaantaas laakiin waxa weeye madaxweynaha ayaa gacanta ku haya way iman jirta murankan mar kastaba madaxweynaha oo xilku saaran yahay doorashada riyaale aniga kulmiye riyaale xitaa waxaan ku qasabnay oo naga ogolaaday in la soo kala horeysiyo doorashooyinka marka waxa weeye consensus kan iyo gooraan waxa bixin jiray madaxweynaha waan ku qaldanay taasi waan ku sheegay anagana ma helo wadani waa laakiin waxa la doonayay madaxweynuhu inuu isagoo sharciyan in wadanka doorasho ka qabto waxyeelka loo qabtay loo doortay idinka ka xisbiyahan xisbiyadiina laftiina waxa la idinku dhaliilaa inaad gudoomiyaasha laftooda aysan ogoleen in cid kale xisbigii timaado ayaga laftoodu muddo kootaysteen xisbiga kaalintii u sarreysay taas waxa anagu haddaan aragno cid markaan intaasan ku jiray haddaan arko qof kaawabala oo xisbiga geynaya oo sharciga iyo platformkiisa fulinaya waan iska nasan lahayn laakiin wax principle leh oo xisbiga soo geliyo inuu ajendaha fuliya Soomaaliland kuma jiro kuwa maanta markay iska daayeen xisbiga ku jiraan Soomaaliland ba hadduu sharci ka waayo maanta xil ay xamar tagaya ummad bana principle ayaan ku jirnaa marka waxaad leedahay 20 sano ku dhawaadaan xisbiga cid maamulayay waxaad weydii cid aad xisbiga tiraahdo aad ku aaminto ma jiro bay sheeg ana waa kacay suuqlada beesha caalamka aad sheegtay inay idin leeyihiin dimuqraadi ma tiidin soo xisbiyada laftiina la dooran maayo idin ma dhaantaan oo nin waliba halku ku dhow kootayst ma qofka hadduu doorasho keeno la doorto is democracy hadduu doorasho qaban waaya ayaa la oranayaa hadduu dastuurka bedela oranaya waa dictator laakiin haddaan doorasho tagto waa lagu celin karaa waa lagu ilaa inta helis la heliyo wada laga leeyahay istili waa uu keeni karaa guul taasi wax lagu marmasoon maaye ee wax marmasax weeye qofka doorashada diida